soo dhawaada akhyaaray waa maxamed ibn umar kulankeena kelmadiisa maanta waxay tahay mushkilad aqliyadii lagu abuuray xalkeeda lagu magaaro. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeena kulan iyo kelmad maanta waxaan uga hadlaynaa mushkiladaha ayna soo mara nolosheena ku soo biira waxay ku sameysmaan aqliyada ka dambeysay yani qaab fakara ka dambeeyay in mushkiladaas ay timaado ama ha ku dhacdo mushkiladaas wadan iyo dal iyo dawlad ama ha ku dhacdo shirkad ama ha ku dhacdo dad shakhsiyaal ah. mushkiladaas aqligi keenay ama qaab fakarki abuuray hadii wali lagu sii fakarayo xalkeeda lama gaaro. waa rule waa qaacido ama waxa weeyaan waa qaanuun oo jira weey. dad fara badan inaga mid ah mushkilu abuuray maskaxdiisa iyo qaab fakarkiisa ayuu ku abuuray kadibna isla asagii oo ku jira frame-kii mushkilad qaab fakarkii khaldanaa ee mushkilada keenay frame-kiisa asagoo ku jira ayuu rabaa inuu xal gaaro mana dhacayso. waxa mushkilad kasto timaada asaas oo ah ay mushkilo timaada u fiirso oo dhinacyada hadda aan soo sheegnay mid kamid ah qabsan karta. waxa asaas oo ah laba midood laba arin ayaa asaas oo ah mushkilad kasto timaada. arinka koowaad waxa weeyaan macluumad in ay ka dhiman tahay aqoon yari ku hayso information la'aan uu jiro xog yari ay jirto xog ayaa ka dhiman mushkilad ka abuurmi karta halkaas. qodobka labaad wuxuu yahay in macluumad khaldan aad adeegsanayso oo si khaldan wax lagu sheegay ama xogta aad haysa ay tahay xog khaldan oo wax dhuminaysa misleading keeni karta ama dhibaato keeni karta. labadaas midooday ka dhalataa mushkilad kasta oo ku haysata. saadaradeed number 1 waa inaad raadisaa qaab fakarka keenay mushkiladan marka ugu horeysa si aad uga baxdo oo new thinking attitude aad la timaado yani suluuk iyo dhaqan fikireed oo cusub waa inaad la timaadid. kadibna aad istiraahdo war macluumad miyaa iga khaldan oo qaabkan wax u fahmay iyo qaabka wax ii soo gaarin miyaa khaldan mise macluuma la'aan ayaa ahaysa. labada midada mushkilada asalkeeda ay noqonaysaa taas ayaana markaas keenaysa in aad ka baxdid mushkiladii ama xalkeedii aad gaartid oo wajahay. tusaale ahaan hadii مثلا موبايل aan isticmaalo ama shay electronic sida hadda kamerada wax laga duubayo kale ayaan haystaa sidaan wada ognahay biyaha dhibaato u geysan karaan qalabka electronic ah noocyadiisa kala duwan. hadaanan haynin macluumada ah in electronic iyo biyuhu isdhibayaan waxa dhacaysa in roob kula dhax socdo Soomaa ama mobilkii aan ku qubaysto hadda mobilada qaar la soo casriyay ilaa awood ayaa loo sameeyay xad ay u dul qaadan karaan biyaha fanfaniinka ama biyaha ku dhaxdhacay wax la mid kale waxa ka hadalna si guud macluumaad aan ahaysa keentay ina mushkilad ku dhaxdhaco oo ah in shayga electronic ah oo iga halaabo biyan iga galaan ma tahay mismaa. laakiin marka hayo macluumada ah in electronic iyo biyo aan la isu dhaweynin waxaan ka fogaanayaa in aan shayga electronic aan haystay qalabkii aan agabka aan isticmaalay aan ka ilaaliyo biyihi. sida si lamida hadii aan macluumaad aan haysto ah in meel aan u socday ay bari iga jirto macluumaad khaldan laakiin sida saxda ay tahay in iga jirto koonfur waa laba jiho kala duwan Soomaa. saadaradeed waxaan aadayaa barigii oo hor u sii soconaya oo ku sii dhaqaaqaya oo ka raadinaya meel aysan wixii jirin halka baadidii iyo waxa aan raadinaya iga jirto koonfur. saadaradeed labadaas arin iska ilaali si aad u gaartid xalka mushkiladaha ee ku soo waajihi kara hadii ay ahaato dhan dawladeed iyo dal iyo haday noqoto dhan shirkad iyo ganacsi iyo waliba haday noqoto dhan shakhsi. number 1 fiiri macluumaad miyaa ka maqan ma xog ayaa ka dhiman. number 2 xogta aad haysataa ma saxan tahay mise waxba ka khaldan. kadibna isku day aqliyadii abuurtay inaad ka dhaxbaxdid si aad ula timaado aqliyad cusub oo xalka beeri karta. waa mahadsantahay.